wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb waxay ka dhagax dhigtay xarun lagu talagalay in lagu dhaqan celiyo dadka da'da waaweyn sida warbixinta warkan inoogu soo diray wariyaheena Cabdikariin Xaashi Cabdi madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo agaasimaha waaxda dhaqan celinta wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdirashiid ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxay ka dhagax dhigeen xarunta dhaqan celinta dadka waaweyn waxaana xaruntan ay noqonaysaa xarunta markaasi la doonayo in lagu dhaqan celiyo dadka waaweyn madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo agaasimaha waaxda dhaqan celinta wasaaradda amniga ayaa ka hadlay dhagax dhigan maanta la sameeyay marka ugu horeyso waxa farxad ah maanta in 2 maalmood gudaheeda shalayna aan daahfurnay xaruntii caruurta oo runtiina saaka si toos u bilaabi doonto insha Allah taala saaka oo bishana aan maanta dhagax dhignay xaruntii dadka waaweyn ee dhaqacinta maamul goboleedka Galmudug aad iyo aad waxaan ugu mahadinaynaa maamulka Galmudug sida uu uga jawaabay waxyaabihii aan kala hadalay oo ahaa in ay Galmudug maanta baahida ka jirta dadka isoo dhiibay ee khawariista maadaama qayb ka mid ah degmooyinka Galmudug ay ku sugan yihiin dadkii shabaabka ahaa iyo dadkii la marhabaabay isla markaana ay doonayaan dadka ka soo baxa meeshii aad lahayn u baahan yihiin waa xaruntii afraad ee dalka laga furo sharaf weyn noo maanta Galmudug inay noqoto maamulkii xaruntii afraad ee maanta aan dhagax dhigno biidnilaahi kare ilaahina waxaan ka rajaynayaa meeshii inay noqoto meeshii qaybta ugu weyneed amniga lagu soo dabaalay Galmudug dhamaanteed inay qayb ka noqoto isla markaana meeshan laga hirgelin anagoo kaashanayna wadamada deeqda bixiya gaar ahaan wadamada barnaamijkan gacanta naga siiya inay sida ugu dhaqso badan arintan uga jawaabaan isla markaana ka hirgelin meeshan xaruntii loogu talagalay dadka lagu dhaqan celin lahaa marka waa ku faraxsanaa maanta in aan xarun weyn oo dhaqan celinta Galmudug yacni loo dhagax dhigay halkan oo caasimadda Dhuusamareeb aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maantana waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala ilmaha yaryarka iyo kuwa waayeelka intaba in ay meeshii ay ku toosi lahaayeen oo wax alla wixii ay ku shubeen looga shubi lahaa inay noqoto ayaan rajaynaynaa waa xarun dan guud oo aan wax yacni dan khaas aan lahayn oo dad u salahayn oo dawladdu ay iska leedahay dhulka marka waxa loogu deeqay in lagu daryeelo dadka khawaarijtu ay marin habaabisay oo ama ka soo goosanayo iskood uga soo carabay ummadii waa nacday dadkii yacni ay haysteen oo dhama ka fakanahay marka dhiirigelina waa u tahay in markii la daryeelo dadka ka soo fakanayo ka soo cararayo dhibaatadooda ka soo cararaya in ay yacni kuwa kalena daryeelkaas markay arkaan iyakuna yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa dhammaantood horana waa kii hadda madaxweynaha Soomaaliya shala ayay ahayd markii wasaaradda amniga Soomaaliya lagu wareejiyay xarunta dhaqan celinta caruurta ee magaalada Dhuusamareeb Cabdikariin Xaashi Cabdi Somali Cable TV Dhuusamareeb